dumara oo gacani ka jabtay ku-xigeenka wakiilka shirkadda diyaaradaha Juba Airways mudane Xasan Sheekh Cali oo Somali Cable khadka telefoonka kula hadlay ayaa waxa uu sharaxay bal sida xaalku ahaa ka daay aad u fara badan oo mahigaan ayaa ka daay maka oo magaalada dhameed wax badan gaarsiiyay arrintan inshallah inaan idin sheego oo uga faa'iideysto wada hadalkan waxa kamid ah galabtay abaare shantii galabnimo oo mahigaan isagoo daaya ayaa wiish wuxuu ku soo go'ay wiishashkii dhisay xaramka wiish kamid ah ayaa ku soo go'ay xaramka wuxuuna ku dhacay doorka saddexaad ee xaramka ama dhismaha saddexaad ee xaramka dawaafka iyo sacyiga ayuu ku dhacay dad fara badan baa meesha wax ku gaareen alxamdulilah rabbilcaalamiin soomaalidii halkaa joogtay ilaa iyo 5 qof ayaa meesha wax ku gaareen waxa gaarayna waxa weeye waa dhaawac wada fudud markii laga reebo gabar gacan ka jabtay ayaa meesha ka dhacay soomaalidu waa dadka ugu saalan bay kamid tahay ilaahay baana u fugeeyey alxamdulilah baanu leenahay intaa dhaawacana allah bogsiyo dawladaha kale oo muslimiinta walaalahana wax gaareenna ee naftooda waan uga tacsiinayna wixii dhimasho gaaray wixii dhimasho gaartay iyo wixii dhaawac gaaray waxaan leenahay wixii dhintan allah u naxariisto wixii dhaawacana sida nabad ayaa bogsiyo ku-xigeenka wakiilka shirkadda diyaaradaha Juba Airways mudane Xasan Sheekh Cali ayaa sidoo kale xusay in sanadan xujayda Soomaaliyeed ee ka soo xajinaysa Soomaaliya ay gaarayaan ilaa 7600 waxaana uu xusay in xujaydaasi intoodii badnayd ay soo gaareen goobaha barakaysan haddaba dadkii halkaasi ku dhintay ayaa la sheegay inay badankood ka soo jeedaan wadamada Aasiya Cabduqaadir Qayska TV-ga caalamiga Somali Cable Jeddah Saudi Arabia ururka suxufiyiinta bariga iyo bartamaha Somaliland oo magacooda loo soo gaabiyo Sechia oo ayaa cambaareeyay dhaawacyo habeenkii xalay ahaa koox siyaasiyiin u adeegaya ay gaarsiiyeen wariye Maxamed Aadan Dirir oo ka tirsan TV-ga Somali Cable Maxamed Cabdullaahi soo fariistay ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya ururka suxufiyiinta bariga iyo bartamaha Somaliland ee Sechia oo maanta shir isugu yimid magaalada Berbera ayaa cambaareeyay gacan ka hadal habeenkii xalay lagu kacay wariye Maxamed Aadan Dirir oo ka tirsan suxufiyiinta Somaliland isla markaana ka howlgala TV-ga caalamiga ah ee Somali Cable wariyahan oo ka howlgala magaalada Hargeysa ayaa waxa la sheegay in habeenkii xalay kooxi ay ku weerartay hotel Guuleed isagoo howlo la xiriira shaqadiisa u jooga halkaasna ay ku gaarsiiyeen dhaawacyo ka soo gaaray madaxa iyo gacmaha isla markaana lagu daaweynayo hadda isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa kooxda dilkan geysatay ayaa goobtii ay ka geysteen gacan ka hadalka ka baxsaday isla markaana ilaa hadda aan gacanta lagu soo dhigin waxaanay ururka suxufiyiinta bariga iyo bartamaha Somaliland ee Sechia ugu baaqeen xukuumadda in cidii falkaasi foolxumada u geysatay wariyahan gacanta lagu soo dhigo isla markaana sharciga la hor keeno waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta bariga iyo bartamaha Somaliland ee Sechia Yaasiin Jaamac Ali horta waa nasiib daro aan hore ugu dhicin suxufiyiinta Somaliland suxufi iskaga caweynaya hotel magaalada Hargeysa kamid ah oo inta dhalinyaro u timaado ay jeegbaane madaxa kaga garaacaan waa midaan hore ugu dhicin suxufiyiinta reer Somaliland gudaheeda arrinkaasi ilaa imika wax la sheegaya in nimankii falka geystaan la soo qaban waxaan leenahay xukuumadda iyo hay'adaha amniga ka shaqeeyaba hal la soo qabto